sida boqorad oo kale daliil waxay u tahay in uu ku soo barbaaray gacanta boqorad kale. Afar qof weligaa ha noqon mid ku adag haweeneyda, cunuga yar, qofka kuu shaqaynaya iyo qofka kuu yimaada asagoo cudurdaar wata. marmarka qaar waxaa lagama maarmaan ah in aynu joogtayno aamusnaanta si dadka kale ay noo maqlaan. Aamusnaantu waa fanni weyn oo ka mid ah fanniyada nolosha. Saaxiibadu waa laba nooc: saaxiib fadligiisa aadan hilmaamayn noloshaada inta ka dhiman, iyo saaxiib aadan hilmaamayn dhagartiisa ilaa markaad dhimata mooye. Haweenka looma abuurin inay wax jeclaadaan, laakiin jacaylka ayaaba laga abuuray. Jacayl waxaa ugu adag inaad jeclaato qof aadan weligaa arkayn, asigoo kalena aadan helayn, booskiisana cid kale aysan kuu buuxin karin. Allah ha u naxariisto qof walba oo qaali inagu ahaa. muhiim ma ah wixii tagay inay ahaayeen wax aan ku raali gelin. Waxaa muhiim ah inaad samaysato mustaqbal cusub oo ku raali geliya. Marka aad dareento adigu inaad ku sugan tahay wejiga isdhiibidda, ogow oo xasuusa inay jiraan dad raba inay arkaan adiga oo fashilmay. Ha u dagaalamin waxaad jeceshahay dartiisa, hana jeclaan waxaadan ixtiraamin, hana ixtiraamin waxa aadan aqoon fiican u lahayn. ilaasho markasta qofka sida dhabta ah kuu jecel, sababtoo ah waxaad heli doontaa waqti walba in uu kuugu tiirsan yahay. cadowgaada ku dil aamusnaantaada, ku ciqaab maqnaanshiyahaaga, ugana guulayso dhoola caddeyntaada. qofkaan shakhsiyadaada aqoon u lahayn xaq uma laha in uu kuugu xukmiyo dharka aad xiran tahay. qofkaan awoodin in uu ku qadariyana yuusan kaa soo raadsan wax la yidhaahdo qadarinba. shay walba waxa uu noqonayaa mid qurux badan marka aynu doonayno shay qurux badan. mar walba waxaynu libaaxyo ku nahay afkaarteena. mar walba noqo qof adag. haddii aadan awoodin iska muuji. ha siinin danayntaada ilaa qofka mudan mooye. waxaa jira basharka qaar ka mid ah danayntu aysan u siyaadinayn ilaa isla weyne iyo kibir mooye. qofkii qaladkaa galaa ismaamsii marka koobaad, marka labaadna iska cafi, marka saddexaadna isaga tag qofkaasi oo dhan. qofka ku dila ma ah qofka rasaas kuugu fura ee ku dila, balse waa midka dila riyooyinkaaga oo dhan. noloshu waa ay adag tahay, laakiin ma aha dushaada in ay tahay in aad isdhiibto. marnaba ha u ogolaan hal shay oo keliya in uu burburiyo shay walba. ahaw qof adag, dadkana ka yeel in ay ku weydiiyaan sababta aad ugu suuli la'dahay in aad dhoola caddayso. samee waxa qalbiga aad ka dareemayso, waxaas ayaa ah waxa kuu toosan. waxaad u banbixi doontaa in aad hogaamiso dhammaan xaaladaha. haddii aad rabto cadowgaada inaad disho, guushaada ku dil, dhoola caddeyntaadana ku duug. noloshu waa ay dhammaanaysaa, wayna ka degdeg badan tahay waxa aad ka rumaysan tahay. weligaa hala tartamin qofna haddii uu haysan wax uu khasaariyo. haddii aad tahay qof laga guulaystay, u dhoola caddee cadowgaaga, waxa uu weyn doonaa dhamacaanka guushiisa. wax aynu jecelnahay wixii tegay, sababta oo ah waa uu tegay. haddii uu noo soo laaban lahaa waa aynu neclahayn. haddii aan ogaan lahayn wax nagala sheegaya marka aan maqannahay, uma aynan dhoola caddeyn lahayn kuwo badan oo dadka ka mid ah. oofinta laguma qiyaasa waxa aad ku aragta indhahaaga, ee waxaa gadaashaada ka dhacbaa lagu qiyaasaa.